السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبنا قالق سو دوادا وقيبت سدحد ee sheekadeenii nafsi iyo nabar jacayl. waxay gudaha u soo gashay maqsiinkii u yaala gooshe iyo kartoona waxa dhex martay hadalkan. Gooshe ayaa yiri waan ku sugayay ee soo gudub war qeyr lana ii sheeg. Kartoona ayaa tiri soo gudbay laakiin war aad jeclaan lahayd kuma hayo. Gooshe ayaa yiri maxaad ka wadaa warka ii balaadhi. Kartoona ayaa tiri horta waxaan sababtooda lahayn may dhicin haddaan ku bilaabo kulankiina dhex maray anigoo iyo inantii aad dirtay ee Samira. bilow si fiican ay ii qaabishay si diiranna salaanta way iga qaaday walow ay wakaad qof xanuunsan oo aan ka dareemay niyad jab badan hase yeeshee waxa ka muuqata geesinimo iyo adkaysi laakiin dilaaca qalbiga intuu la ekaa iska daa qofeene xitaa caruurtu way arki karaysay waxbayaan hadalka kugu dheeraynay markaan sheekada u bilaabay way dhibsatay waxaan igu tiri iga jooji ninkaas warkiisa haddana waa isla anagii waxa kugu jirta nafta qiyaantay qofkii dacadda ku ahay sanado badan qofkii aad waqtiga dheeraad ku lumisay waxaanad noqotay qofkii qaniinay gacantii wax lagu siin jiray. Gooshe ayaa yiri intaas oo dhanba waan ogahay ee hadda ayaan ka soo noqonaya. Kartoona ayaa tii way wanaagsan tahay haddii aad kici karto ee markaad caafimaado adigu afkaada ku raali geli Samirana cid dambe ha u dirin waa iga talo haddaan dumarnahay waan qalbi jilicsanahay oo waa laga yaabaa inay ku saamaxdo. Gooshe ayaa yiri hadalka waa macquul inaabtay intaas markay isweedarsadeen Kartoon iyo Gooshe waxa qolkii Gooshe ku jira soo galay kalkalasada nabarkiisa dhayda waxayna u sheegtay in muddo bil ah aanu suuliga dhaafi karin iska daa bixitaan kale oo banaanka ah. Gooshe isbitaalka noo sii dhex jiifo bal aan ka war doono halkuu marayo nabarkii gaaray qalbiga Samira inta wixii ka dambeeyay way niyad jabtay waxayna ka aamin baxday ragga oo dhan oo ay mooday inay wada beenalayl yihiin. sidaas waxay ahaataba waxa la gaaray dhalashada Samira oo ku beegneed 7 Oktoobar 2006 maalintii noocan oo kale ah waxa Samira looga bartay inay farxad la damaashaado asxaabteeda telefoon uga wada sheegto oo habeen ku qaadato farxad iyo qosol. intaasiba may sameyn sanadka hablo ay Samira ahaayeen asxaab aad isku dhow ayaa habeenkii Samira casumay oo u kaxeeyay hotel magaciisa la yiraahdo Nile Blue. habeenkaas wuxuu ahaa habeenkii ugu horeeyay ee ay Samira dibad u baxdo tan iyo intii nabarku qalbigeeda gaaray. markii qadar kooban la soo casheeyay ee hablo ay damceen in ay Samira ku igad salaaxaan sheekooyin hore oo ay ogaayeen inay macno weyn u sameeyaan. sheeko kasta oo la soo qaado Samira waxay ku darsanaysay qosol aan labada dibnood waxba uga hooseyn. sawir maskaxdeeda ay rabto inay ilowsiido waxa qalbiga ku soo gadaal celinaya wiil iyo gabar da'dooda ay tahay 19 jir oo kursiga Samira asxaabteeda fadhiyaan kaga beegan dhanka waqooyi. mucaashaqiintu da'da yari cuntada ayay afka isku gurayaan in cabaara ayaa la caweeyay. caweyskii markuu dhamaaday waxa loo soo kicitamay dhinaca internetka oo ku yaal meel u dhow guriga Samira ay gasho. habeenkaas internetka aad ayuu u buuxay waxayna ahayd maalin fasax ah oo dhalinyaradu internetka isku wada yimaadeen. sidaa daraadeed waxay la kulmeen internetka oo mashquul ah dad badan ay sugayaan saf dheer ay qabsadeen halka ay Samira fadhida meesha ku been waxa fadhiyay wiil dhalinyaro ah kaasoo isha Samira markiiba ku dhacday. wiilku wuxuu xiran yahay surwaal madow shaar cad dhexdana suwaak ayuu shaarka ka mariyay kaba af dhaadheer oo madowna waa xiran yahay. waa goor xagaa ah dadka reer xabeedka ah ee Jabuuti ku dhashay ama ku barbaaray dhammaan waxay xiran yihiin garamaan qafiif ah iyo kaba sandal ah. halka waxa ka muuqata in labis ahaan aanu wiilkaani Jabuuti la haysan wuxuu safkii socdo oo qofkii soo baxba qof kale u bedelayo. waxa la soo gaaray markii ay Samira gali lahayd waxaanay Samira ku tiri inantii ku xigtay walaal qof baan sugaya iga hore oo iska gal. markii safkii uu soo yaraaday oo ay hareen Maxamed Amiin iyo Samira waxa hadalkii furtay Samira oo tiri walaal iga raali ahaw reer Jabuuti mateed ee halkeed baad ka timid. Maxamed Amiin ayaa ugu jawaabay sababtuna maxaad ku garan kartaa inaan reer Jabuuti ahay iyo in kale. Samira ayaa tiri sidaan quruxda badan ragga reer Jabuuti ma labistaan. Maxamed Amiin intuu qoslay ayuu yiri ragga reer Jabuuti ma dhar iyo labis u gaar ah oo xirtaan ayaa jira. Samira ayaa tiri haa dadka waxa lagu kala gartaa waa labiskooda haddii inta ku fahmi weydana hadalkooda. marka adiga labiskaaga iyo hadalkaaga waxay og yihiin kuwii reer Hargeysa. Maxamed Amiin ayaa yiri run baad sheegtay waxaan ahay reer Hargeysa magaaladan waxaan joogaa muddo 5 bilood ah laakiin waxaan islahaa waxaad u ekaatay reer Jabuuti
waxaad i dareensiisay caawa inaan isbedelin waanad ku mahadsan tahay ka gudub xaafadeed gashaa Samiira ayaa tiri xaafadda shanaad adna xaafadeed gashaa Maxamed Amiin ayaa yiri waxaan galaa xaafadda koowaad Samiira ayaa tiri halkeed ka shaqeysaa Maxamed Amiin ayaa ugu jawaabay waxaan nahay macallin wax ka dhiga dugsi gaar ah oo ku yaala xaafadda saddexaad Samiira ayaa tiri si fiican baan u sheekaysan doonaa horta internetka iska soo dhamayso oo marka haddii aad iga soo horbaxdo isug haddaan ka soo horbaxana halka barandada ayaan kugu sugayaa Maxamed Amiin ayaa yiri haye waa yahay habeenka markii internetka ay ka soo baxeen Maxamed Amiin iyo Samiira halka ayaa laga soo wada jaan qaaday Samiira oo maalmo yar oo kooban ka soo kabanaysay dhaawac iyo dharbaxadii xanuunka badneed ee dhawaan gaadhay haddana waxay diyaar u tahay in ay bilowdo hasaawo cusub halka haddii dadka qaar waxay wax iska weydiinayaan sababta Samiira iyadoo niyad jabsan haddana diyaarka ugu tahay in ay hasaawo cusub bilowdo waxaa jirto aragti dalka Jabuuti si wanaagsan uga shaqeysa taas oo ah haddii qof aad isjeceshihiin ku xumeeyo oo nafsi ka galo sida ugu wanaagsan ee aad isku ilowsiin karto in ay tahay inaad xiriir kale oo cusub bilowdo aragtidan dhowr goor oo la tijaabiyay waxay noqotay xalka ugu macquulsan islaameenkii ugu horeeyay ee Samiira iyo Maxamed Amiin isbartaan waxay soo tusay xaafadooda sidoo kale waxay kala qorteen lambaro ay ka soo wada xiriiraan sidaas ayaa la isku nabadgeliyay kulankooda xigay waxaa lagu kulmay guriga Maxamed Galo oo ku yaala xaafadda koowaad waxaana hasaawaha hibo furay oo sheekada qaatay Samiira waxaan hadalkeedu dhignaa sidaan